Asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. Sagaashan iyo saddex gabdhaha dumarka markay da'da 30 sano dhaafaan way adagtahay inay miisaanka iska ridaan. Sababta ma taqaanaa ma ahan inay lazy yihiin, ma ahan in ay cuntada ku dhiban yihiin, mana ahan inay exercise aadi karin. Waxaa jirto 6 caqabad barrier dumarka khaas u ah physiological gudaha jirkoodana ka dhacdo. Haddii noqon lahayd stress, hadduu noqon lahaa hormoonaadkeedu imbalance noqdo, iyo hadduu noqon lahaa waxaan sarcopenia ee dhahaan inay murqaha jirkeeda ay loos garayso. 6dan caqabadood maanta waxaan ku wadaa waxa ay yihiin solutionka. Dabcan waxaan uga hortagi karnaa aamin. Videogan haddii aad dhammaysato cilmi badana ku kordhay. Kaliya waxaa isku daydaa 1 qalin soo qaado, warqad aad ku xariiqatana diyaarso, 2 biyana soo diyaarsan insha Allah taala. Meeshan 10 badana kaaga bixi doona. Qodobka ugu horeeya ama barrierka ugu horeeya, caqabada ugu horeysa gabadha hortaagan waxaa la dhahaa progesterone craving. 2 week gabadhu markuu uga dhiman yahay inay fasaxa gasho, inay periodkeeda u yimaado, waa 2 week ee inta badan wax walba ay sameynayso ay qalado. Haddii ay diet ku jirtay, haddii workout aadi jirtay, ayadoo dhan waxay noqonaysaa qof aanan waxba qabsan karin. 1 cravingka iyo kor u qaada hormoonkan progesterone la dhaho waqtiyadan marka lagu jiro gabadha. 2 macaanku jeclaysiyaa gabadha. 3 waqti qaldanna wax wuu cunsiyaa. Inta badan marka gabdhaha aniga ila shaqeeya ama client-gii ah waxaan xasuustaa 3 sano ka hor intaanan cilmigan gudaha aan u soo gelin, gabadhu markaan barnaamij wax u sameeyo 2 week markay joogto bay ii timaad igu tiraa coach maanta way iga fakatay, maanta macaana cunay, maanta khaladkaas ku dhacay. Walaa waan hanaaqi jiro ilaahay la og. laakiin gadaal dambe waxaa ogaaday physiologically ani ayagu inaanan isku mid ahayn, inay gabadhu 2 isbuucna ay diyaarsan tahay, ay motivation haysato oo xataa libidogeeda uu cirka ku jiro, 2 weekna ay ku jirto marxaladan cravingka iyo macaan raadiska iyo gaajada aysan adkaysan karin. Xaalan raadiye marka xalku wuxuu noqday in mar walba gabadhu ay diyaar noqoto. Cuntadaada ha ku diyaarsanaato, hana noqoto cunto high protein ah. Markay cuntadaada ku diyaarsan tahay waxaad ka fakanaysaa jikada markaad soo gasho inaad waxaad rabto iska cunto. 2 high protein diet markaa cunto cravingka wuu dhimanaa. Aamina cravingka mar walba waxaa lagu dimiyaa cunto high protein ah. Ukuna isticmaali kartaa, yogaada isticmaali kartaa, sidoo kale kalluunka, hilibka, chickenka waxa rabtid aad isticmaali kartaa oo protein ah, ogta inuu protein fiican leeyahay. Qodobka labaad waxaan ay dhahan estrogen insulin resistance. Dabcan estrogen waa taqaanaan waa hormoon caadi ah inta badanna dumarka jirkooda hawlo badan ka haya. Estrogenka wuxuu awood u leeyahay faatkaaga jirka inuu quful ku dhufto, in jirkaaga glycogenka ku jiro ama tamarta ku jirto mar walba uu soo saaro aanan la isticmaalinba, oo jirkaaga gaar ahaan metabolismkaaga ama systemkan u taagan inuu tamarta ka dhigo energygan ku keedgaraysan oo slow noqdo. Estrogenkaaga hadduu high noqdo wuxuu awood u leeyahay barar inuu jirkaaga geliyo, biyo inuu jirkaaga geliyo, in aad dareentid shalay inay 2 kiilo kaa dhacday maantana ay keliya bar kugu soo darsoontay. Roller coasterkaasna maanta oo dhan aad ku jirto. Haddii arrinkan u yimaado marka wadada keliya marka estrogenkaaga aad ugu guulaysan lahayd waxaa waaye intermittent fastingka. Isku day in aad soonka isbarto. Soonku 12 saacadood aad soomi kartaa, 10 saacadood aad soomi kartaa, 16 saacadood aad soomi kartaa. Intermittent fastingku haddaadan si fiican u garanaynin commentiga igula soo wadaag qaababka ugu fiican ee loo sameeyo, anaa kula wadaagi doona. Khasab ma ahan haddii quraacda aadan ka maarmeenin in aad suuxii markuu waaga ku bariyo aad gaajo isku disho ilaa duurkiina aad gaajooto. Intermittent fastingku 2 saacaad gooyin kartaa, 4 saacaad gooyin kartaa, 7 saacaad duhurnimana waad gooyin kartaa. Qodobkeena 3 muscle loss sarcopenia. Sarcopenia inta badan 2 nooc u dhacaa. Dumarka mar hadday 35 sano kor u dhaafaan murqahoodu boqolkiiba waxaa la dhahaa 70 dhulkay galaan. Haddii aanan laga taxadarin, haddii aanan cunto fiican la siinin, haddii aanan aalamiito loo samaynin, sarcopeniahan marna caafimaad darro ku yimaadaa, marna da'da keenta. Gaar ahaan 40 and above gabadhu markay gasho waa caadi inuu sarcopeniahan iskeeno. Ogowna masoladaada
waxay dhahaan waa muxuu ahay metabolically active kama maarantid muruqaha jirkan ku jiro aad arkaysid ee qeybli waxa ka qaataan baruurta jirka ku jiro in la gubo haddii muruqahaaga ducfi uu ku yimaado ama tabardare ay ku imaato ama awood la'aan ay noqdaan aamin weligaa baruur maridaysid weligaa miisaan ma kaa dhacayo una fiirso gabdhaha inta badan gaajada isku dila baahida nafta iskaaga qaada maxaa ku dhaca miisaanka ka wada daata علولا كسو حرتا لأنه علوش برورتا كجرتي مرقيه بابي إلها ماشي مجوغو حال ميدا مركا كسينا تلادو في عن سوليشونكا مركا ساكروبيني هان وكسو أصيبو أما وقت كان آد كجرتي دبا إسكو داي إن أدجيمك إنت أتكتب بيراها كترين جري مركا كلها هاي وحيرا كتسنا إيكادي كان استعمالي كرتا كان وابر جيمك مركا جوكتو هادي أتكنكو عالمي تيسو استيل بيرا استعمالوسا أوكي waxaa isku daydaa jirkaaga gaar ahaan muruquhu inay helaan waxa iska caabin ah resistance in aad xoogaa yar awood u sheegato taas waxay ka caawin kartaa inuu muruqi dhismo mar walba muruqaaga dhismana aamin jirkaaga faadkana wuu gubi wuuna ku qurux badnaana insha Allah taala caqabada afraad marka cortisol stresska ugu stressku gabdhaha marka tiraado stresska hal iska ilaaliyo hal meel ku ordaan anigu stress ma ilaalin kari single mother aan ahay hooyo caruur korinaysan ahay ilmaan daba orda ilmaas no saas maahan waxaad ogaataa intaad meel fariisato hal su'aal isweydiye caruurtan aad ka daba ordaysid ilmahan aad caafimaadkooda ka taxadaraysid adigu naftaada ka horeyso maanta haddii aad dhulka soo dhacdo haddii adigu caafimaad dare ee ku imaado caruurtaada waxba uma qaban kartid adiguna waxba iskuma qaban kartid stresska marka laga hadlaayo waa afarka ugu weyn habeenkii ma seexanaysid snapchat ku jirta tiktok ku jirta markaas hadhow waxaad inaad tiraadid ilma i stress gareey no way talaab ku siinaan hurdadaada marna gorgortan ha ka gelin haddii habeenkii hurdo la'aan ay kugu dhacaysa aragto haddii habeenkii aadan hurdi karin walaalay dhakhtar u tag wallahi alcadiim waxa ciyaar maaha dhakhtar u tag hurdadaada dib ha loo fiiriyo hurdada aad ay muhiim u tahay labo waxaad ogaataa adduunka system ku shaqeeya maanta ilaahu hadarta sin kolmaadar noqo hadarta noqo hooyo caruur badan haysato laakiin odayga uu mashquul ka yahay noqo waxa ogaataa system hadda nolosha u sameeyso systemkaas adigana ku shaqeynaysa caruurtaadana ku shaqeynaysa qurbaha hadda maanta hadda u fiiriso wallahi waxa arkaysaa hooyo miisaan culus saaran yahay okay gabdhaha ee dhashay maxad ka rajeynay marka hal wada la soo wada maraa kuligooda laakiin marka adiga fit tahay hooyada markay caafimaad qabto markay jirkeeda ka taxadarto digsiga guriga isbedelaay odayga miisaanka yaraa saarnaa uu ka dhaca caruurtana miisaanka saarnaa uu ka dhaca guriga dhanna wuxuu noqonaa guri wada caafimaad ku nool stressku I know noloshu qayb ka mid ah laakiin waa la reduce gareyn karaa waana la yareyn karaa caqabada shanaad PCOS waxa ogaataan maanta 5 gabdhood ay ka hor imaata xanuunkan PCOS-ka mid ka mid ah qabta waana adduunko dhan ma aha gabdhaha Soomaaliyeed laakiin ma taqaanaa nasiib darada midkood oo og inuu PCOS hayo ma jiro PCOS-ku waa hormoonaadka jirkaaga oo imbalance noqdo insulinkaaga oo xadka ka baxo waxa ogaataa insulin pancreaskaagu haddii uu insulin zaa'ida soo saaro jirkana insulinka uusan isticmaalaynin oo maanta dhan dhiiga uusan ugu wareeganayo uu resistance ku jiro dabcan hormoonaadka jirkoo dhan resistance way galaan iska caabintaas taa waxay ku tusinaysaa jirkaaga inuusan waxba gubi karin baruurta inuusan gubi karin glycogenka ama sokorta ku jirto inuusan gubi karin oo keeni karayso berito inay ka dhalato xitaa caqabad inuu ama macaan kugu dhaco ama xanuun kaleete uu jirkaaga ku soo dhunto PCOS-ka haddii aad rabto in aad ka caafimaato solution aad u hesho horta waxaan aan ka hadlay dhamaantooda cuntooyinka loogu talagalay qaybta hoosan idin kula wadaagi doona af Soomaali ku wada qoran yihiin meesha kaga la dagay insha Allah taala PCOS-kana cuntooyin gaar ah oo waxa jira oo anti inflammatory ah omega 3 go kaleete selenium ko kale hoosan idin kula wadaaga insha Allah taala waxaan idin tusinaa caqabad walbo iyo cuntada aad ugu gudbi lahayd qaybta hoose ka tagsada insha Allah caqabada ugu dambaysa ma tan lixaadna ah waa thyroid slow down okay thyroidka waxa ogaataa khanjirkan yare meeshan kaaga yaalo asaga wuxuu controla jirkaaga inuu metabolismkiisa high noqdo ama slow noqdo jirkaaga inuu baruur badan gubo ama inuu baruur yar gubo inta badanna thyroid problemku qofku
kaliya ma uu yimaado inuu xanuun thyroid qabo maya gabadha markay uur noqoto thyroidkeeda wuu istressaa hadhowti markay canuga dhashana laba mid ama way ka kacdaa oo thyroidkeeda normal ku soo noqdaa amaba si toos oo slow u ahaada waana sababta keenayso gabdhaha markay dhalaan kadib inuu miisaankooda sii kordho miisaanka uu ku ziyaa'ido 40 jirka qofka markuu menopause galo gabadha markay sheekadan caadada iyo filinkan ay soo xirto iyadan sidoo kaleete way ku imaataa oo muxuu ahaa thyroid problemka uu yimaada oo slow u gala jirkeeda metabolismkeeda wax ma gubo jirkeeda wax ma gubo miisaan culusna wuu koraa ogow lixdan caqabadood waxaa laga yaabaa midkood inuu ku haysto hadduusan midkood ku haysanina lagaba yaababo lixduba inay ku wada haysato laakiin cuntadan aan hoos kuula qaybsanayo haddaad isku dayda inaad isticmaasho oo si taxadar lena aad u isticmaasho insha allahu tacaala waxaan kuu rajaynayaa inaad caafimaad badan ka hesho oo walaalkaa Kosafriya haddii aad janalka cusub tahay wax kale kaama codsanayno nagu soo bir insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.